السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إنسان سومالوين ملب دنيا داخل كريتين ولكن ما هتغير ولكن مثلا هو كسر دو ما هتغير كنا الفرشية ولا رجال waxaan rabaa in la wadaago hal qodob oo aad iyo aad u muhiim ah oo ah hooyo Soomaaliyeed oo dhibana ah codsigeeda isoo dhibatay ahaantii xalay haddaan nahay Soomaali annagu isku dirnaxnaa marka walaalayaal waxaan rabaa in la wadaago adinkuna aad si faafisiin si gaarsiin walaalaha muslimiinta si ay u sii shargareeyaan ayakuna ahaantii waa hooyo Soomaaliyeed oo dhibana ah hooyo Soomaaliyeedna waan fahmi karnaa oo ahaantii wax kale ma ahan hooyo Soomaaliyeed oo ninka la yiraahdo caruurteedii aan 3 sano sameel ay ku ogtahay jaan iyo cirib aan la arkay marka jaclayna inay soo horfadhiisato social media saas daraadeeda soo wakiilatay marka walaalkayga muslimka ah waxaan ka codsanaa inaad fiidiyogan share gareysid ee aad la wadaagtid walaalaha kale oo muslimiinta si ay u share gareeyaan walaalayaal ahaantii hooyadan waxay ku nooshahay Sacuudi Carabiya ahaantii markay ay sheekaysay oo aan la sheekaystay wax badan oo ila soo xiriirtay ay waxay codsi igu soo dhiibatay in aan u baafiyo caruurteeda ahaantii ma aysan ka lumin gaalka ma haysato waxa haystaa waa aabahood waay wax kale ma ahaantii aabahood ciidii khilaaf jar aka dhex galay marka waan hooyo Soomaaliyeed ahaantii waa dareemi kartaa walaalkay muslimka ah hooyo Soomaaliyeed caruurteeda ka maqan 3 sano walaalkay muslimka ah sida uga naxdo hooyada laga rabaa in ay uga naxdid marka walaalkay muslimka ah haddaba hooyadan waxaa lagu magacaabaa Shamso Cabdi Cali Kullane walaalkay muslimka ah waxaan ka codsanaynaa haddana maqlaay meel kasta dunida dafeeda oo ka joogo Cabdul Qaadir Cali Xasan oo ah ilmaha abahooda in uu hadduu xitaa qalafkas ka dhaxeeyo wala dartiis asagoo u fiirinayo oo la ka cabsanayo in uu la xiriiriyo ilmaheeda hadduu xitaa u ogoleen in ay maaragtay ay la kulanto ahaantii waa nasiib darro in aad ilmaha hooyadeed aad ka qaridaa balse walaalkay muslimka ah waxaan la hadlaa waa Cabdul Qaadir Cali Xasan ay ma ahi nin ama u socdo dan gaar ama dana kale muhiimadeedu waa in ay hooyada Soomaaliyeed ee murugaysan Shamso Cabdi Cali Kullane in aad ka farxisid muhiimadeedu in intaas way walaalkay muslimka ah ilmaheeda waa dareemi kartaa hooyada ku dhashay haddii aad ka maqnaatid waxyaabo waqti badan ee aadan ama soo xiriirin ama aysan ku ogeyn samar jaan iyo macluumaad adigan weyn walaalkay muslimka ah haddii maanta hooyo ay ku weydo waqti kooban wallahi waxa ognahay in aysan maqnaa karin oo ay dareemay waqti badan oo ay noo bararanayso marka walaalkay muslimka ah haddaba maxaad u maleynay haddii caruur yar oo haddana run ahaantii mid kasta oo jiray 10 iyo wax la jiro markii ay ka maqnaad markii ay ka tagtay ay kala tageen xaajigaas iyada marka walaalayaal waxaan ka codsanaa in aad share gareeyeen fiidiyogan walaalkay muslimka waxa ku waajibana inaad meel walba oo ka soo gaaro in aad sii share gareeyid waayo hooyadan Soomaaliyeed ee social media aan soo fadhiisan karin waxaan aan ka codsanaynaa iyadana in ay duceysato qalbigeedana dajido oo Allah subhanahu wa ta'ala ay tala saarato ay qalbigeena ku dajiso ilmaheeda insha Allah mar isoo hay doona marka walaalkay muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa meel walba dunida dadka joogtid in hooyadaas u gurmino hooyo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed hooyadan lamida marka walaalkay muslimka ah run ahaantii waxaan ka codsanaa meel walba dunida dadka joogto in aan hooyadaas u gurmino aan u istaagno maaragtay waxaan ku tari karno haddaan fiidiyoo u share gareyno haddaan u duceyno run ahaantii wax duceyna lamida ee la soo koobo ma la sheegay walaalkay muslimka ah lagama baahna qarash lagama baahno xoolahaas waa weyn walaalkay muslimka ah run ahaantii waxa laga baahan yahay adna waxa laga yaabaa waxaan waa adduunyo naftaan meel ay gaar lama yaqaan waxa laga yaabaa in aysan macnaha aysan ilmahoodii ay taleefon waxas wali qaadan marka walaalkay muslimka ah ku caawi in aad u duceydo mid kale aad share gareysid oo fiidiyogan la wadaagtid asxaabta markuu soo gaaro waxa isku dayday walaalkay muslimka ah adam si fiican xitaa u sii gudagelin
in aad shargaraysid walaalkayga muslimka ah run ahaantii waxaan aniga igu soo kallifay in aan soo galo hooyada Soomaaliyeed oo lamid ah hooyada dhashay in aan u naxno hooyada Soomaaliyeed aan aragno iyada ka faraxsan run ahaantii aniga waxaan baraha bulshada soo fadhiistay in aan khayrkana faafiyo dadka masaakiinta run ahaantii khayrka ka mid tahay dadka masaakiinta oo dhibanayaashaana aan isku dayo si aan u farxiyo marka run ahaantii waxay ka mid tahay hooyada Soomaaliyeed dad dhibana maadaamay 3 sano ka hor aysan arkin carruurteedii dunida daafeeda meel bay ka joogaan marka walaalkayga muslimka ah run ahaantii waxaan ka codsanaa marka ugu dambaydo in aad u duceysid aad ducada aad u baridid markasta oo salaad tukatid waayo wallaahi hooyadan waxaa la soo dirsay walwal aad iyo aad u weyn marka walaalkayga muslimka ah waxaan Allah ka baryayaa meel walba dunida joogto haddaad xanuunsan tahay ilaahay ku caafiyo intii caafimaad qabtaan ilaahay oo soo run ahaantii waxaa jiro cudur dunida dhan saameeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ku baalmariyo oosan ku keenin inta jirnada cudurkan oo saameeyana ilaahay subxaanahu wa tacaala oo baalmariyo uga dhiga dambi dhaaf marka walaalkayga muslimka ah run ahaantii ninka in la hadlaa waa walaalkiin Mahad Cali Xasan walaalkayga muslimka ah waxaan ka codsanaa haddana codsigayga run ahaantii maanta wuxuu ku salaysan yahay kuna kooban yahay hooyo Shamso Cabdi Cali Kulane marka walaalkayga muslimka ah waxaan ka codsanaynaa aqalka u dambeeyay qodobkooda ku jeeda run ahaantii curudkeeda waxaa lagu magacaabaa sida ay sheegtay Anwar Cabdulqaadir Cali Xasan Anwar Cabdulqaadir Cali Xasan oo hadana maqle walaalkayga muslimka ah soo xiriiri hooyo macaan si walba soo xiriirida midda kale walaalkayga muslimka ah waxaa jirto ilmuhu waa 3 gabadhan waxaa lagu magacaabaa Leylo Cabdulqaadir Cali Xasan run ahaantii ayaka dhan waa isla dhashan ama kala ahaan dad ama kala aabba ama kala hooyo waa isla dhashan oo waa isku hooyo isku aabbe marka walaalkayga muslimka ah waxaan ka codsanaa in aad fiidiyoga share gareydid sidoo kale waxaa jiro wiil asna jiro u yar ilaa Qays Cabdulqaadir Cali Xasan oo da'diisu run ahaantii ay u sheegto hooyadaas 8 sano jira run ahaantii waa carruurka u yar oo yarankeeda ah maantan meel uu ku maqan yahay ay kan carabiyan ma taqaan marka walaalkayga muslimka ah waxaan ka codsanaa hooyo Shamso Cabdi Cali Kulane in aad la qaybsato murugada haddaan nahay Soomaali waxaan kaga baahan yahay in aan isgarab qabsano maaragtay dadkan Soomaaliyeed ee dhibanaha haba yaraadeen aan la shaqeyno aan isku dayno aan u dadaalno si aan farxi lahayn hadda alla barino haddaan maaragtay aan فيديو أشر قرينه أن مرت شغلان تدا أشقينا شغل وين أدوقه تدا استر ولا كيمسل كهو في دشر قريد ما حد كهري ما هانت واحد أركاي ولا لك لا بالشبه أنا قاعد كلا ولا في شر قريد أتعبت هذا كلا واحد لا يبي في شر قريد مركز دبنا وكتبه نينك الله بحنا بقى عرورتي بكتبه مركز هانت ولا كيمسل كهو واحد كوسو قرا لما كده حدا وتا جيس كويا له مركز ولا كيمسل كهو كده بعو جيس كاس هذا قرنيست وحق قرنيست المهدي ملو شوقان run ahaantii waa 3 carruurta ah hooyadaas aan u dadaalno si degdeg ah marka walaalayaal waxaan kaga baahan yahay in aan bixino dadaal juhdi dheer aan hooyadaas u bixino walaalkayga muslimka ah ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynaa qodobkayga aan caawino hooyo Shamso Cabdi Cali run ahaantii Cabdulqaadir Cali Xasan oo haddana maqle walaalkayga muslimka ah run ahaantii waxaa tahay walaal Soomaaliyeed maahid nin shisheeye ama nin gaala walaalkayga muslimka ah nin muslim ah tahay nin Soomaaliyeed ah tahay run ahaantii marka walaalkayga muslimka ah Cabdulqaadir waxaan ka codsanaynaa inaad hooyadaas dhibaataysan aad run ahaantii gabdhaha Soomaaliyeed waa aad u jecel yihiin haddaan u fiirino oo waxa hore wax loo dhahay gabdhaha iska carruur marka walaalkayga muslimka ah waxaan ka codsanaa Cabdulqaadir in aad la hadal siido haddaad xitaa awoodin adiga aad oo farxad ilmaha awoodin in la hadal siido ninka Anwara oo u weyn la hadashido sidoo kale Leylo sidoo kale Qays si ay ogaato oo beerkooda iyo wadnaha u dego run ahaantii hooyo wax dhashay waan dareemi karnaa iska dhaafe qof wax dhalay qofka wallaahi wax dhalin uu dareemi karaa sababtoo ah aqligu soo qabaa walaalkayga muslimka ah waan ku salaamaa meel wadnaha ka joogtid aan caawino
hooyadaas dhibaataysan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.